سلام صاحبي المربد جوجتان waxaan ahay Cabdullaahi Cabdi waxaan ka socdaa Radiga LLC muuqaalkan maanta wuxuu ku saabsan yahay xakinta lagu sameeyay 75 dal ee waaxda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka mar dhow ay ku sameysay kaasoo dhaqan galay 21 January 2026 Radiga Radiga LLC waxay diyaarinaysaa dacwad kooxeed ama group lawsuit kaasoo aan ku diidanahay xakinta lagu sameeyay 75 dal inay fiisooda helaan ee dalkana soo galaan dacwadan waxaan ka furi doonaa ama aan ka gudbin doonaa degmada Columbia of yani federal maxkamadda federaalka ee District Court of Columbia sidoo kale waxaa muhiim ah ka qaybgalayaasha dacwadan saddex qodob inay mataqaanaa ama saddex shuruud inay buuxiyaan kuwaas oo kale ah marka hore qofka ka qayb qaadanaya dacwadan waa inuu ahaada qof already immigrant visa xareystay ama u xareysan tahay kaasoo ku xareystay shaqo ama qoys ahaan wadan kusoo galaya fadlan hadaa tahay DV lottery kuma qosayso qaybtan taadi way jirtaa DV lottery dacwada aan gudbinayno way jirtaa 2026 laakiin waa ka gaartan kuma qosayso labo qofka ka qayb galaya dacwadan ama group lawsuitkan waa inuu horey u xareeyay DS 260 giisa oo haysto confirmation page-kiisa ama interview already mar hore inuu maray qofkii labadaas waa inuu buuxiyaa so saddex waxa weeyaan waa qofkaas inuu already qayb kale dacwad kale inuusan ka qayb galin ay noqoto dacwadan tan ugu horeysa uu ka qayb galay dacwad kale inuusan u furnayn deadline-ka muhiimka waxa weeyaan aan rabno inaan wadaagno waxa weeyaan dacwadan waxay ku eg tahay isdiiwaangelinteeda ama onboarding wax la dhahay waxay ku eg tahay 6 bisha soo socota February 2026 sidoo kale Radiga LLC dacwadu waxay gudbin doontaa 20 February 2026 insha Allah waxa yani codsiyaasha inta badan waxa yani kala saameeyay travel ban so for example Somalia saddex jeer oo travel banka ama ama wax walba ee saameynta Mareykanka ka dhacday saameynaysa kow marka hore travel ban aan la saaray laba mar labaad travel ban oo 40 wadan ka kooban yani la saaray hadan waan ku jirnaa mar saddexda dan 75 wadan oo la soo saaray oo kan lagu sameeyay hadan waan ku jirnaa so in general dadka ka qayb qaadanaya dacwadan waxa weeyaan macnaheedu ma ahan isbaaro walba ka hortaalana meesha ka saari karno waan isku dayaynaa waan dadaalaynaa laakiin adoo fiisa haysta ama fiisa aan ku soo dhicnaa lagu dhihi karaa wadanka ma soo galaysid waxa ku saameeyay travel ban taas waa inaan maanka ku haysaa sidoo kale qofka waa inuu damaanad guul ah inuusan isa siinin dacwadan ma ahan class of action macnaheedu dacwadan kaliya waxa ka faa'iideysan doona ama yani wixii ka soo baxay doona miraheedu waxa weeyaan dadka ka qayb galay dacwadan ama maxkamadda codsiga loo gudbiyay ama email marisay qofka waxa heli doona kaliya ka qayb galay dacwadan ee group lawsuitka macnaheedu ma ahan qof walba oo mataqaana muhaajiriin ama muhaajir ah ama rabo inuu wadankan imaado inuu ka qayb yani muhiim yani inuu ka yani wax ka heli doono ama faa'iido ka heli doono dadka inta badan say dhacdo waxa weeyaan dacwad walba waxa ka faa'iida dadka dacwadayaasha so fadlan hasasinin dacwadan guul inay ku soo dhamaatay kaliya xusnow inaan guul daro dhici karto inaad guuleysan kartid laakiin muhiimaddu waxa weeyaan inaan mar walba aan rabno inaan helno macaamiilkeena ama macaamiisheena waxa u danaa inaan helno ama aan ka keeno maxkamadaha so waxa kale oo muhiim ah inaan ogaano qarashaadka dacwadda kaga baxay waxa weeyaan $2,000 taasoo mataqaanaa qoys walba qoyska 10 qof ka koobnaado iyo $1 ruux ka koobnaado waa isku mid $2,000 weeyaan qarashaadka kaga bixi doona $1,000 waxaad bixin doontaa dacwadda markaad iska diiwaan gelisid baad bixin doontaa kunka kalena waxaad bixin doontaa marka Mareykanka soo gashid aad sal dhigatid waxaadna u bixin kartaa bille bishiiba $250 si aad awooddaada ay tahay so sidoo kale qofka u horeeya ama qofka dacwadani ka qayb gali doona ama asaa yani mas'uulka ah marka Mareykanka soo gala lacagta ku dhiman inuu bixiyo marka fadlan xasuusnow hadaad family-ka adiga oo horeysid ama dacwadda adiga mataqaanaa head of yani household-ga adiga tahay adaa mar mas'uulka ah hadhoodii Radiga LLC aday kula soo xiriiraysaa wixii kugu haray marka insha Allah waxaan rajaynaynaa guul dhamaanteenaba aad baad u mahadsantihiin ama aad baad u mahadsantahay daawashada muuqaalkan thank you